السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال ميل كستو أدونكاد كجوجتان markale waxaan maanta barnaamij la yeelanayaa abwaan maxamed axmed maxamuud wadani barnaamijkana wuxuu daba socdaa barnaamijka hore aan idinku sheegay inuu noqon doono barnaamij taxanaa abwaanka kaliya kuma koobnaan doono dad badan oo qisooyin nololeed iyo mid jacaylba soo maray baanu halkan soo fadhiisin doonaa balse hadda waxaanu sii dhammaystiraynaa qisooyinkii abwaanka oo nin hal abuura oo qisooyin badanna ka sameeyay qisooyinku la soo kulmay أبوان سودو صاحب ودوهي يا وري قيس أدي أدنى سلامية هذيك إيو بهذا تي في كي إم تي في بهذا تي في كي إم تي في لما هو سلامية وشو الصوماليات أدنى سلامية يا أخي نقطع ونص أبوان واحد شاكتي إن قسوين بدن أد نلاش هذا الله سوكل أنت أدون كنت شوكتي أما أنت سوغان تاني واحد الدراسة دو كده حجرتي هذه marka waxaad iiga sheekaysay qiso la magac baxday qisadii jacayl qisadii habsiga habsi jacayl jacaylka habsiga galay marka waxaan rabaa in daawadayaasha inaad la wadaagtid bal qisadaas iyo siday u dhacday iyo meeshay ka dhacday iyo xilligay dhacdayba niyo ma santahay saaxiibkay aad ba ma santahay qisaas waa qiso aad iyo aad xanuun badan waxaana ka dhacdaa ani kaliya uga dhacay Soomaalidu dhab ay ka dhex jirtaa habeen iyo maalinba adduunkuna sidoo waxa weeye wada qisaba yani Soomaalidu yani waxbaan qorin oo yani waxaan sameyn yani waxa la dhaho dhigaal baan sameyn adduunka wada qiso gabadh baan isjeclay anaga oo dhalinyara jacaylkii igu horeeyay oo kugu dhaca gabadha jacayl waxaan dhex maray وأنا أنا ما تعلن كلي هو استعلين هذا لبدي إنه لبدا دنا واسكو برر شرها واسكو محير يعني مسكو حيس بررنا صح قبل واسكو حيس برر شرين صح قبل يربي هيد يعني خير بعرض واحد صح واد بلوتش على أبا يعني حق والد كده أبي بحسيه قبل إن كوين صح ويودياري وحنا كذا قاعد حولا ألف ربنا صح قبل دينا يعني ولا يرى يسلقين يا عيال فعله بيربطها بيتعشى صح يا ويستعلين صح وديقي قبل مركو بحيه حوله ما كقاطي أدوكو يعني هرانتو دي وحوق هذه قبل إن أيون ولا يرى وقلبي كذا هيستوي مسكحي ويكره حال يوم وحن يونين كان لسي وحن بقوة جديدة وحا وما تشيد له صح وابلا تسوح على نكال وسوان كان يفهم نوين وضيع قبل واحد شفتي مراية قلبك صح واحد شفتي صح قبل مركا واحد كري يعني قام بقاعتي صح waxay u tirinayo hawshi yani balisi oday aan doonaynin hawshin isdegdega u dhamee gabadhii maalmaha habeenada kamida ayaan balnay aan ku balnay meel guriga u dhow gurigooda u dhow anoo kabar sawirsanay yaa ku shaqaysanayna soo oday gabadha uu ilaaliyay gabadhii uu jecel yahay nin baro ku daray oday waxa ka qaatay xoolo oday xoolo bulqay wuuna tuunsan yahay gabadha nin ku maran yahay oday gabadhii waa ka dabayay qori buu istaa waxaan sibtalo bardalo habeenkii goorsi qor lagu qabto yaa bay ahayd aniguna sideedaba yani weligay yani waxaan ahaa nin nabadeed baan ahaa oo xag hubka isku wanaagsan ragga nabadaan ahay ninkii bilaawo badilay nin sheekh ay gabadhii anagu wada fadhino sheekadii aan ma marso ama shak isdaqaajin waa qaboonay labadeediba gabadhii waa qaylisay barif bad noqotay wariya كرو ما كعكسين بوليس بان وضي نوعي بوليس بان دول كانوا سيغو قري كوغو هاي قال الشباب اورغ نوعي حساب ما سان وجه بردلون قال الشباب قال بودو يدخ كامراي بس انا كل وريغبا ما باجي كبدينا كاس لو دفتي وضي غعنت قبسان انا غادي waa lagu tuuray baalchelo ma lagu tuuray dum waxa la iimu weydiinay maxaa lahayd iyo maxaad ka rabtay waxba lagu ma oran maxaa lahayd iyo waxba la iimu weydiisay soo odaygu xog ah wuxuu gudbiyay ninkan gabadh buu ku fursaday صح وانا وضع فرماية كيس وين بوسور كيس دل بيسرق يا كيسك كوبسيغان بدنا كوبسيغان وخطر ولقي اسكتا قبل ما نربح تا قبل ما عاين ما نربح صح تمرك waxaan aad ku markan xariistu aad ugu faraaqo gabadhii markii ogaatay in la xiray odaygii ninkii wuxuu yiri inta keenay ninka dadkiisa halka ay ugu xidhnaado habeenkii hadda meesha ku jiray subaxdii gabadhii waxay timi ogaadeen in gaari boolis meesha ugu yimid waxay timi station magaalada waxa la saddex station laba kale soo martay waxay timi kii ugu dambeeyay maxay ahayd maxamuud iyo ma haysan ninka noocaas halka ma ku xidhay marka waxa la moodiyay qof wax ku sida family-ga maxaa ahayd
waxay tiri ninka xalay markii soo xiriyay gabadhii la fadhiday yaa ay sheekaysanayeen baana waana isjecelahay agad way xog siirtaa gaas iyo letter marka askartii halka wax ugu cadaanaysa inaan kufsigii odaygu sheegay inaan kufsiga ka jirin taliyii waxa ku tiri gabadhii taliya saddex qodob yaa kala dooro halka waxa ugu jira bay tiri waxa ku sitaa gaas letter waa sitaa ninka waa isjecel halka ku jira waa jacaylkeedii war abahay baan soo xiray wax dambiyana male saddex qodob kala dooro inaan barta isku gubo yaa adi hortaada aan dab isqabadsiiyo aan dab ka intaan gaas isku shubo aan letter isqabadsiiyo in aad ninka isoo deyso inaad qolladayda qol ugu wada xidho taliyo mustacjib gabadh iyo wiil ajnabi ah qolku ma wada xiri karo gabadh iyo wiil ajnabi ah qolku ma wada xiri karo waa mas'uuliyad daro waa tuulaha yani abwaan gaariye yani waa tuulaha lamaane aan guur dhex marin intaan guri wada dajaan haddana garac diidaya wuxuu yiri markaa waxaad samaysaan ninka uu kusoo deenaya wadada iskala baxa haddaad israbtaan dakiiskii oo kufsiga aana meesha uu ka baabay kufsina meesha ma yaallo aabaheedna yani wax gabdhaaba ku dhalay iyada na gabdha kale walaa ma jiraan may gabdha kufsiga aabaha sheegay ma adiga odayga lambarkiisina yani waa dasan yahay halkiiba yaanu gabadhii yaa baan iska raacnay waraan intaan u dhaaqay oo saaxiibadii oo gaari doontay waxaan u baxay meesha loo ceeri gaabo gabadhii dawaa la fakaday ilaa meesha fadhimay adiga waan xirayaa odayga xal qorgistay uu ku dilayaa waa fakaday la ceer gaabo qisadii gabadhii ninkii baa la siiyey odaygii adigu wuxuu la soo hadlay odayaashii faan odayaashii wada hadlay waxa la yiri wiilka yar gabadha nooga soo reeba wiilka yar gabadha nooga soo reeba nin baan siinay gabadhii gabadhu nin baa la siiyey waa gabadh marwaa oo doonan oo nin loo meheriyay la abeed uu meherin karaa hada inaan tahay ha adigu bixiyay la gabadha xoolo wada ka qaatay waar gabadh la qaba adigu gabadhii sidii baa laga afduubay haddana afduub laga gacayay waar gabadhii ninkii baa lagu daray waa loo aroosay aroos uu dhisay caadi ahayn gabadhii waxay kari weyday magacii ninkii magaceegay baa ku safkaraysan maxay ahayd inuu ku safkaraysan waar waxa laga yaabaa ninkan Cabdirasaaq ayaa baa la yiraahdaa bal gabadhii waa tan cabdi afkeeda ka soo baxdo marka waxa laga yaabaa habeenkii markay saacadeen ay tahay ugu qarowdo maxamed yadoo la ninkeeda aag jiifa ninkeeda ma jiifa waa dhibaato qoys burbur waa dhibaato qoys burbur iskuma raagin iskuma yahay raagin marka maasada xariga xabsi jacayl halkaas bay ka timi waan ka sameeyay maasadina waa tan markii noo gudo gal maasada barnaamijyadan kaliya uma soo deyno inaan maxaan ku raadaa qisooyin aan ka waranno laakiin waxaan u soo deynaa wacyigelin weeyaan waxyaabaha qaar haddeer uu ninkan ka sheekeynayo waxaa ka mid ah in gabar yar oo 14 jir ah la siiyo oday ka weyn oo maxaan ku raadaa 60 jir ah halkaasna waxaa dhib kaga imanaysa gabadhaas iyo ninka la siiyeyba waxaana imanaysaa in gabdho badan carmal ama garoob ay noqdaan taasina waxaa kalifaysa ama keenaysa in gabadha ninkay rabto loo diido nin kalena lagu qasbo marka tani waxay wacyigelin u tahay guud ahaan bulshada gaar ahaan waalidiinta oo gabdhaha yaryar ku qasba nimanka ka waaweyn lacaga ama shilimaad yar daraadood shilimadan waa wax meel ku eg oo iska dhamaadaan laakiin qofka shakhsiyadiisa iyo dadnimadiisa iyo jiritaankiisa ayaa ka muhiimsan marka maasadan insha Allah aan sii guda gali doonaa maasada waxay leedahay ma ku xiray jacayl weli xabsi adag ma kugu riday ma ka qaaday xorriyadii xukun dheer ma ku jaray xalinta rajaa sugtiyo xilligu waa badan yaho xusuusta ma deynaysidee maxaan xumadooday waayo yaa qalbiga ku xaaraniyo wadnaha xididada ku duran ayaan adig kugu xardho la'aanta ma xasile goormaad xabadka igu qaban yaa goormaad xabadka igu qaban yaa goormaad xabadka igu qaban goormaad xabadka igu qaban naf yahay caashiqu xanibay jacaylku iyo xaaladiisa xisaab kuma koobaye had maad ka xoroobaysaa yaa had maad ka xoroobaysaa xubbigan i wareeriyow yaa xubbigan i wareeriyow xeraad igu oodato xogtayda ma baahiside xaqayga had maad isiin intaas ku koobanta kuma saad qurux badan xaqayga had maad isiin marka dad badanna way ku dayan doonaan insha Allah oo yaani maasada way isku diri doonaan haday habsi jacayl galaan annagana aad baan soo dhaweynaa guud ahaan waxa halkan ku soo afmeerinaa barnaamijkii qiso jacayl oo mar labaad martiigu ahaa abwaan maxamed axmed maxamuud oo ku magac dheer abwaan wadani abwaan waxaan ku leeyahay intaan barnaamijkan barnaamij la mid ah aan ku kulmi doona
adiga iyo guud ahaan bulshadana daawanaysa waxaan ka kala tegaynaa. Assalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.